والله horta ani mas-uul Soomaaliyeed ah aqoon-yahan waan ahay inaan Mandera imaado oo arrinta maanta beled xaawo ka taala marxaladda aanan ka hadlin horta waa ma dhacaysa annaga dadka beled xaawo degan waa dadkanagi waa ummad Soomaaliyeed waa ummad muslimiin waa ummadaan derisan waa ummadaan waqti badan aan isla wada nooleyn isdhex galnay oon aad u jecelnahay arrintan beled xaawo ka jirta waqti badan ay soo noqotay saameyn weyn magaalada Mandera aad bay ugu leedahay weliba khaas ahaan inaan dhaha Soomaaliba yani si jamac aan dhaha inta beled xaawo aan kusoo noqon doonaa si jamac aan u dhaha Soomaalida nasiib dar weyn baa haysta ummadii way ka tageen maxaa la yidhahdaa qori waqtiga lagu dagaalamayo waa laga tagay maanta waxa lagu dagaalamayo waa qaran waa qalin waxa lagu dagaalamayo waa waxbarasho waxa lagu dagaalamayo maanta waa waxtar waay laakiin anaga weli meeshaan taaganahay meeshii 40 sano aan taagnayna maanta aan taaganahay waa nasiib darra in ummadda la barkaciyo masaakiinta la barakaciyo magaalo iska degan oo baqaaro leh oo baabuuro leh oo bangiye leh oo dadkeeda asladan yahay nool yahay oo magaalooyin kalena ay ku nool yihiin maxaa yeelay aniga Mandera maanta markaas waaga barya inta ka imaadaysa beled xaawo oo bagaashe iyo raashin nasa baabuure iyo inta Nairobi ka imaadaysa badan tan beled xaawo loo imaadaysa badan marka beled xaawo markaas ka dhaca markay beled xaawo ay hindhishooto Mandera hargaba ku dhaca ma fahamtay marka dhibka beled xaawo ka dhaca anagana aad buu noo taabtaa dadka beled xaawo dhibka gaar anagana waa soo gaara xanuunkooda ayaa xanuunkayne hurdalaantooda ayaa hurdalaantayne marka raggan oo Muqdisho iyo Kismaayo joog oo dadkan geedo oo iska masaakiinta iska degan waqti kasta marka la joogo dagaal galinhay horta nasiib daro weyn waay waqtigan hadda la joogo in gabdhihii iyo ciyaalkii iyo maatooyinkii la barakaciyo maxaa yeelay maanta ummadii waxay daadsantahay Mandera qaarkood xarooyin bay ku jiraan qaarkood hataa family iskama war hayaan ciyaalkii gaar bay soo carareen aabii Mandera u soo cararay hooyadii meeshii bay ku hadhay yaa maanta mas'uulka waa su'aash haddaad weydiiso maanta waxa lagu dagaalamayaa wax maanta lagu sheegi karo la taaban kara malaha intaas ku dhimatay la sheegaya anaga ma hayn shahid oo inahayna ma saarno beled xaawo anaga ma aadan laakiin idaacooyinkan ka dhageysana oo baraha bulshada aan ka fiirsanaa waxay u dhinteen maanta lama garanayo dadkaas waxay u dhinteen maanta lama garanayo noloshii iyo ganacsigii iyo magaalada degneed ayaa 24 hours dhexdeeda rabish la gelay oo colaad la gelay oo qax iyo qaxooti la gelay qaxootiga midka dibadda ka kala ximaahin wadanka dhexdiisa dadka ay ku barakacaan waa qaxooti gudaha waay hata xuduudkan ay soo gooyaan inta soo aadaan waa qaxooti marka su'aasha waxa waaye ganacsigii noloshii nabadgelyadii deganaashadii ummadii isdhex kacaysi oo isku dhex nooleed marka la yiraahdo yani dhibaatada soo kordhaysa dadka waxay u fiiriyaan marmar waxa la yiraahdaa intaas ku dhimatay intaasana khasaare ka gaartay laakiin long term effect long term impact meeqa milyan oo dollar oo 5 bari mas 6 bari mas timaam markaas colaad socdo ku dhumaysa meesha ida meeqa qof oo waxbarashadoodii iyo ganacsigoodii iyo deganaashadoodii iyo hataa qoyskii ciyaalkii iyo maamadii iyo odaygii qoyskii wada degnay oo la barakacay meeqa khasaaro soo gaaraysa meeqa dhaga xume meeqa naxtin dad Mandera joogan qaarkood ayaa shaqaysan way dad Mandera joogan qaarkood ayaa hurdi way dad baa xabada xagga laga soo tiri guriyashooda ay ku soo wada dhacday dad baa cabsi la shaqaysan way marka hataa psychology ahaan ummadii waad aragtay beled xaawo iyo Mandera hadda way isdhex galeen صح gurigan intuu ku yaala kan intuu ay ku yaala marka midaan ku sheegay haday beled xaawo ay hindhishooto Mandera hargab waa ku dhici macnaheedu waxa waaye sidii la isu dhex galay weeyaan marka arrimaha ka yaala beled xaawo masagada baan dhaha
وإن حلوا هلا وإن أمدان Soomaaliyeed oo isku yeeraya madaxda dadkan generaalada isku yeeraya war generaalnimada ma ahayn qoryaan qaatay iyo labasaan xirtay ma ahayn waa in mid ummad wax u taraysa ay noqoto war ummadan waa in laga naxa ummadan waqti badan baa ay ku soo jirto colaad oo ay soo daashay anaga wadan jiraan anahay laakiin waa walaalehen xanuunkooda ayaa xanuunkayna dhibaatadooda ayaa dhibaatayna waliba khaasaan Mandera aad bay noo saamaysaa tii darteedaan rabnaa inaan arrintan maanta nagu qasabto inaan ka hadalno madax badan way ka hadleen dowladda Kenyana waa dowlad aan aad u jecelna waa dowladanaga waa inay xuduudka nabadgelyadiisa ay ilaalisa waqti kasta anagoona kuwa la hadlayno lena war ummadaas hala badbaaday qof Kenyaan inaas dhib ku soo gaarin oo muwaadin inaas dhib ku soo gaarin waxa ka jira inay dhib ku soo gaarin dowladda Kenyana ka codsanayna madaxda Kenyana inay waan sameeyaan waqti badan waa ogahay arrimaha Soomaaliya aad baan ay ugu dhex jireen in waan la sameeyo oo ummadahan waliba dariska aan nahay oo waqti kasta ay wax markay ku dhacaan anagana soo saameynay in waan laga sameeyo dowladda Kenya oo in waliba dhexdhexaad ka ahaato صح aad baan taasna u jecelnahay insha Allah